السلام عليكم كسو دوادا وحكبرو مانتا waxaan sharxi doonaa taxanaha Kooriyaanka ah ee la yiraahdo Squid Game labadiisa xalqadood ee ugu horeeya oo lagu magacaabo Red Light Green Light iyo Hell waana kan musalsalkii ee daawo oo taxadar subscribe sar channelka like na sar videogan waxa laga yaabaa inay kula fududahay laakiin anaga qiimeyn oo leedahay Song Gyun waa nin da dhexe ku jira waxaanu guri kula nool yahay hooyadii Gyun waxa lagu leeyahay deen aad u fara badan waxaanu leeyahay bilowda khamaarka taasi oo xaaladooda dhaqaale ka sii dhigtay qaar aad u faqri ah maalin isagoo quraacanaya ayaa Gyun hooyadii waxay siisay qadar lacag ah si uu inantiisa oo lagu magacaabo Gaayoon uu dhalashadeeda casho kaga farxiyo ugu soo iibiyo Gyun xaaskiisii hore waxay guursatay nin maalqabeen ah badanaana uma ogolaato inuu inantiisa arko sidaa daraadeed Gyun wuxuu ku faraxsan yahay inuu inantiisa arko maalinta dhalashadeeda hooyadiina wuxuu weydiistay lacag dheeraad ah si uu inantiisa Gaayoon sidoo kale hadiyad uu soo iibiyo ugu horeyntii waxay u sheegtay inaanay lacag hayn balse haddana ugu dambeyntii ileen waa hooyay waxay ugu dartay waxoogaa kadib markay ka tagtay Gyun wuxuu si xeeladaysan u helay kaarkeedii waxaanu u baxay si uu lacag badan uga soo baxo isagoo uu la socdo saaxiibkiisii ay wada khamaarayeen inta kadib waxay lacagtii khamaar ka dhigteen tartanka fartaha balse nasiibkoodu waa xumaa ciyaar kastana way guul dareysanayeen kamanay joogsan inay lacagta sii dhigtaan xataa iyagoo ku dhawaaday inay gebi ahaanba lacagtooda khasaaraan ugu dambeyntiisa Gyun wuxuu ku guuleystay lacag aad u fiican waxaanu u farxay si aad ah xataa wuxuu lacagtii wax yar oo bakhshish ah ka siiyay gabadhii lacagta u dhiibaysay farxad awgeed waxaanu dibadda u baxay isagoo nasiibkiisa u dabaaldegaya isla markii uu baxayba Gyun wuxuu arkay rag cadaysan oo soo socda dhankiisa waxay amaahiyeen din aad u fara badan isagoo ka baqanaya in lacagtan uu helay ay ka qaataan wuxuu dib ugu dhex araray dhismihii waxaanu si shil ah ugu dhacay gabadh ragii deynta ku lahaa ugu dambeyntii way qabteen waxaanay ugu hanjabeen inay dili doonaan haddii aanu lacagtooda u soo celin Gyun oo cabsanaya ayaa isku dayay inuu lacagtii uu ku soo guuleystay siiyo balse wuxuu ogaaday in jeebkiisu uu maran yahay wuxuu xaqiiqsaday in gabadhii markii ay isku dhaceen ay jeeb siibtay lacagtiina ay ka xaday si kastaba ha ahaatee ragii deynta ku lahaa waxaa maydaneen waxaanay bilaabeen inay garaacaan Gyun waxay sanka ka geliyeen mindida yar iyagoo ku sababay inuu dhiig ka yimaado waxay u sheegeen inay bil kadib ku soo noqon doonaan waana ka tageen hadda ninkii Gyun shilin ma haysto waa eber sidaa darteedna wuxuu ku noqday gabadhii uu lacagta yar siiyay waxaanu weydiistay inay lacagtiisa u soo celiso wali ma haysto lacag ku filan oo uu gabadhiisa hadiyad ugu iibiyo sidaa darteed wuxuu isku dayay inuu mid uga soo guuleysto ciyaarta mishiinka boombalada balse nasiib darro hal mid xataa uu ku guuleysan kari waayay inuu ka soo saaro gudaha mishiinka wiil yar oo agtiisa joogay ayaa caawiyay ugu dambeyntiina wuxuu ku guuleystay hadiyad yar waxay u dabaaldegeen guusha yar inta kadibna Gyun wuu ka tagay kadib markii uu ku yaraa u mahad celiyay inantiisii wuxuu u qaaday meel wax laga cuno labadoodiina halkaas ay waqti fiican ku qaateen inantiisa Gaayoon waxay ka warwarsan tahay nabarada aabaheed wajiga ku yaala taasi oo uu Gyun u sheegay inay nabaradan ay kanaaca ka qaniintay wuxuu u dhiibay hadiyadii isagoon xataa eegin waxa bogoska ku dhex jira inantii yareed ee Gaayoon waxa ka yaabiyay inay meesha ugu tagto leetar ama qarxiso u samaysan qaabka baaskoolada Gyun dib ayuu uga qaaday hadiyadii waxaanu u ballan qaaday inuu mid ka fiican u keeni doono sanadka dambe ugu dambeyntii wuxuu inantiisu u keenay hooyadeed waana kala dhaqaaqeen markay ismaac salaameeyeen Gyun hadda wuxuu joogaa boostashada tareenka waxaana u yimiday nin u eeg inuu habdhaqan wanaagsan yahay si fiican u labisan wuxuu Gyun ku casuumay inuu la ciyaaro ciyaar la yiraahdo dhagshi ciyaartan oo aad ka dhinaca kale u rogayso adigoo kaar kale ku dulfanaya ninkii wuxuu Gyun u sheegay in haddii uu ku guuleysto uu siin doono 100,000 oo lacagta Kooriya ah oo dhiganta $80 balse haddii uu guul dareysto uu wajiga ka dhirbaaxi doono Gyun wuu aqbalay dalabka intii ay ciyaarayeenna Gyun wuxuu guul dareystay marar badan ninkiina marar badan ayuu dhirbaaxa la dhacay sidii dhirbaaxa loogu waday wajigiisii nabar xun ayuu ku yeeshay balse haddana taasi may joojin ugu dambeyntiina wuxuu guuleystay hal mar waxaanu helay lacagtii loo ballan qaaday inta kadib ninkii sida fiican u labisnaa wuxuu u dhiibay card uu lambar ku qoran yahay oo uu soo wici karo haddii uu rabo inuu ciyaaro games sidan oo kale ah
intii uu gurigiisa ku sii socday Guiyuun wuxuu la kulmay islaan daaweyn taasi oo ah saaxiibkii Sang Woo hooyadii waxay ugu faantay inuu inankeedii waqti xaadirkan safar shaqo ah ugu maqan yahay dalka Mareykanka habeennimadii Guiyuun iyo hooyadii oo casho wada cunaya ayaa hooyadii waxay u sheegtay in xaaskiisii hore iyo qoyskeedu ay Mareykanka u guurayaan sidaa darteedna aanu mar kale arki doonin inantiisa Gaayoon Guiyuun wuu naxay balse arintaa waxba kama qaban karo sababtoo ah xaaskiisa waxa si buuxda loogu wareejiyay inay inanta haysato maadaama ay isaga dhibaato dhaqaale haysato habeennimadii isagoo quus taagan ayaa waxa uu wacay nambarkii uu ninku siiyay waxaana loo sheegay inuu soo istaago meel u dhaweyd bas yar ayaa soo istaagay hortiisii waxaana loo sheegay inuu gudaha soo galo isla markii uu galayna gaas ayaa ku baahday meeshii taasi oo ku sababtay inuu suuxo markii uu miyirkiisu soo noqday ee uu soo kacay Guiyuun wuxuu arkay isagoo ku jiifa sariir dad kale badanna ay agtiisa joogaan dharkiisii waa laga bedelay dhammaan wixii uu watayna waa laga qaaday qof kasta wuxuu u muuqdaa inuu u khalkhalsan yahay sida uu isaguba u khalkhalsan yahay qof kasta oo qolka ku jira dusha ayaa lagala socdaa waxaana meesha ugu xidhan kamarado Guiyuun wuxuu la kulmay nin da kaasi oo nambarka 001 uu ugu qoran yahay jaakadiisa halka Guiyuun jaakadiisa ay ugu qoran tahay 456 ninkii wuxuu u sheegay inuu ka cabanayo oo uu la dhibaataysan yahay buro maskaxda kaga taala oo ku sii fidaysa iyagoo wada hadlaya ayaa waxa dareenkoodii qabsaday dagaal meesha ka dhacay gabadhii markii Guiyuun lacagta ka haday ayaa waxay la dagaalamaysaa nin u muuqda inuu gaangistar yahay Guiyuun ayaa dhex galay dagaalkii waxaana ugu hanjabay gabadhii inay lacagtiisii dib ugu soo celiso murankii wuxuu istaagay kadib markii ay qolka soo galeen dad ku labisan dhar guduudan iyo maaskaro waxay soo dhaweeyeen dadkii waxaanay u sheegeen in la ciyaari doono 6 ciyaarood 6 maalmood gudahood kuwa ku guuleysta 6daa geemna ay ku guuleysan doonaan lacag aad u badan mid ka mid ah dadka ka qayb qaadanaya ciyaartani waa Sang Woo oo ah Guiyuun saaxiibkiisii caruurnimadii kaasi oo laga filayay inuu safar ganacsi ugu maqan yahay Mareykanka sida ay hooyadii sheegtay arintuse waxay isku bedeshay in ninkan ay raadinayaan booliisku kadib markii uu lacag dhan 650 milyan oo lacagta Kuuriya ah ay ku yeesheen macaamiishiisii saa awgeedna wuxuu been u sheegay hooyadii wax yar kadib goobo dhalaalaysa oo quraarad ka samaysan ayaa laga soo dejiyay xaggii sare qolka taasi oo ay shaqaalihi u sheegeen in lacag laga soo buuxin doono markay dhameeyaan ciyaarta koobaad qof kastaaba wuu wareeray balse si kastaba ha ahaatee waxay isku raaceen inay ciyaarta ciyaaraan waxaa loo dhiibay buug ay tahay inay saxeexaan buuggaasi oo ay ku qoran yihiin 3 sharci oo kaliya sharciga koobaad ciyaaryahanada looma ogolaa inay joojiyaan ciyaarta markay ciyaartu bilaabanto 2 ciyaaryahanka diida inuu ciyaaro waa la tirtiri doonaa iyo 3 oo ah in ciyaarta la joojin doono haddii ay dadka badankoodu isku raacaan oo ay u codeeyaan in la joojiyo qof kastaaba wuxuu saxiixay foomkii waxaana u diyaar garoobay ciyaartii koobaad marka qolka laga sii baxayo waxaa la sii maraa meel weyn oo jaranjarooyin ka samaysan tartamayaashii waxaa laga qaaday sawiro intaa kadibna waxaa loo qaaday goobtii ciyaarta halkaasi oo ay taalo baambalo weyn oo laga naxayaa Guiyuun wuxuu u tagay saaxiibkii waxaana weydiiyey sababtuu hooyadii beenta ugu sheegay wadahadalkoodii waxaa ka soo dhex galay ogeysiis loo sheegay inay leenka cad xagga dambe ka istaagaan kormeeraha ciyaartan oo meel ka mid ah xarunta ku jira ayuu qof soo wacay waxaanu fadhiistay kursi uu leeyahay oo shaashada hortiisa taala halkaas oo qof kasta ciyaartiisa ka daawanayo markaan ku noqono goobtii ciyaarta ciyaaryahanadii waxaa loo sheegay in ciyaarta koobaad ay tahay red light green light waxaanay haystaan 10 minute oo ay ciyaarta ku dhamaystiri karaan isla marka ay boombalada gabadha ahi tiraahdo red light waa inay halkaa ay joogaan ku qalalaan oo ay istaagaan waxaanay hore u dhaqaaqi karaan oo kaliya markay boombaladu jeedsato ee ay tiraa green light haddii qof lagu qabto isagoo dhaqaaqayna boombalada ayaa dareemaysa dhaqaaqa qofkaana waa la tirtirayaa ciyaartu way bilaabantay waxoogaa yarna caadi bay u socotay waxaa bilaabantay inay boombaladii dareento dhaqaaq nin baana meesha laga saaray isla markiibana waa la toogtay oo la dilay kuwii kale way fahmi waayeen waxa meesha ka socda waxay ciyaareen roonkii labaad balse waxay dhaqso u ogaadeen in dadka la tirtirayo dhab ahaan la dilayo oo aan iron meesha laga saareen waxaa bilaabantay isku dhaxyaac dadkiina waxay bilaabeen inay meel ay ka baxaan raadsadaan oo ay kala cararaan dhammaan wixii dhaqaaqayna waa la toogtay rasadhan oo meyd ah ayaa hortuulantay albaabkii laga geliyay meeshiina waxay isku bedeshay meyd iyo dhiig miidhan ciyaar aanay filanayn ayaa meeshii kaga soo baxday ciyaartooy tira yar oo ciyaartooydii ka mid ah ayaa cabsi la qalalay oo aan iyagu dhaqaaqin roonkii kaa xigay qof kastaaba wuxuu bilaabay inuu aad u taxadaro Guiyuun weli wuxuu fadhiyaa dhulka balse wuxuu dhaqaaqayaa markuu Sang Woo dhaqaaq ku yidhaa
marba wuxuu ku dhawaaday inuu dhaco balse waxa badbaadiyay nin ka dambeeyay oo la yiraahdo cali dad badan ayaa dhintay intay ciyaartu sii socotay balse dhamaadkii qaar kamid ah ayaa ugu dambeyntii ka gudbay ciyaartii kuwaasi oo ay kamid ahaayeen Guyo Sangwoo gabadhii jeebsiibada ahayd Sambyok ninkii da'da ahaa ee Ilnam ninkii gangsterka ahaa ee Diokso iyo ninkii badbaadiyay Guyun ee cali marka kamarada laga soo fogeeyo waxaan arkaynaa in meesha ay joogaan ay tahay jasiirad ilaa dhismuhuna wuxuu ku yaalaa dhulka hoostiisa shaqaalihii waxay meesha ka nadiifiyeen meydadkii waxaanay ku gubeen foorno ciyaartooyadii badbaaday waxaa dib loogu soo celiyay qolkii waxaanay dhammaantood ka argagaxeen wixii ay indhahoodu qabteen ee ay goobjoogga ka ahaayeen Guyun wuxuu uga mahad celiyay cali sidii uu noloshiisa u badbaadiyay intaa kadib waxaa meesha soo galay shaqaalihii goobta waxaanay ugu hambaliyeeyeen inay ka soo gudbeen ciyaartii koobaad ciyaartooyda oo tiradoodu hore u ahayd 456 ayaa waxay hoos ugu soo dhacday 201 taasoo macnaheedu tahay in la dilay 255 ciyaartooy markii ay aragtay waxa meesha ka socda mid kamid ah gabdhihii ayaa jilibkeedu ku fadhiisatay iyadoo shaqaalihii ka baryaysa inay fasaxaan qaar kale ayaana ku soo biiray oo sidaas sameeyay wax yar kadibna qof kastaaba wuxuu weydiistay inay meesha ka fasaxaan si kastaba ha ahaatee shaqaalihii meeshu waxay xasuusiyeen sharcigii koobaad ee ciyaarta waxaanay ugu hanjabeen inay dili doonaan haddii ay diidaan inay ciyaaraan balse Sangwoo ayaa xagga dambe si dhaqso ah uga soo jawaabay isagoo u sheegaya sharcigii saddexaad kaasi oo ahaa in haddii ay dadka badankoodu isku raacaan in ciyaarta la joojiyo shaqaalihii way ku raaceen balse waxay tuseen tirada lacagta meesha lagu qaadanayo ka hor intii aanay codayn goobadii dhalaalaysay ayaa waxa laga soo buuxiyay lacag kaash ah oo badan oo isku xidhxidhan shaqaalihii waxay u sheegeen in qofka guuleystaa uu gurigiisa la tegi doono lacag dhan 45.6 bilyan oo lacagta Kuuriya ah balse haddii ay go'aansadaan inay joojiyaan qoysaska dadkii dhintay ayaa lacagta loo qaybin doonaa oo qoyskiiba la siin doonaa 100 milyan intooda noolina waxba ma heli doonaan lacagta tiradeedii waxay la xajeclo gelisay qof kasta kuwii markii hore ciyaarta diidanaana waxay bilaabeen inay u codeeyaan in ciyaarta la sii wado codkii u dambeeyay ee lagu kala baxayna waxaa codeeyay Ilnam kaasi oo u codeeyay in ciyaarta la dhameeyo ugu dambeyntii waxaa loo ogolaaday inay guryahoodii tagaan iyagoon waxyeello soo gaadhin shaqaalihii waxay u sheegeen in haddii mar kale ay badankoodu rabaan inay ciyaarta ciyaaraan in lala soo xidhiidhi doono muuqaalka kaaxiga Guyun iyo gabadhii Sambyok ayaa bas yar laga soo tuuray iyagoo gacmaha ka xidhan sidoo kale sidan waxaa lagu sameeyay cali iyo Sangwoo dhammaantoodna meelahoodii ayay kala tageen Sangwoo wuxuu cali sii siiyey lacag nool ah oo uu baska ku sii raaco Guyun wuxuu toos ugu tagay booliiskii waxaanu uga warramay afduubkii loo geystay balse booliiskii waxa ku adkaatay inay aaminaan in raggii afduubtay ay codayn uu codeeyay awgeed dib ugu soo daayeen sarkaal booliis ah oo la yiraahdo Chun Ho ayaa isaguna sidoo kale saldhiga jooga kaarka uu Guyun gacanta ku hayo ayaa dareenkiisa qabsaday intaa kadib Guyun wuxuu dib ugu noqday gurigiisii waxaanu ogaaday inay hooyadii guriga ka maqan tahay waxaa dhacday in hooyadii macaan ama sonkorow aad u xun laga helay isla markaana dhakhtarka loo dhigay xanuun daran oo hayay awgeed Guyun wuxuu ku cararay isbitaalkii waxaanu arkay cagtii hooyadii oo ay dhaawacyo qariyeen dhakhaatiirtu waxay u sheegeen in qalliin oo kali ah uu badbaadin karo nolosheeda balse ma awoodo lacagta qalliinka dhinaca kale waxaynu ku arkaynaa sarkaalkii booliiska ahaa ee Chun Ho oo hooyadii kala hadlaya arrinta walaalkii Chun Ho walaalkii waxaa la la'aa dhowr isho taasi oo warwar ku abuurtay qolkii walaalkii wuxuu ka helay kaar la mid ah kaarkii uu Guyun markii tusayay booliiska wuxuu go'aansaday inuu u tago Guyun aanu ka wareysto kaarkan dhinaca kale gabadhii jeebsiibada ahayd ee Sambyok ayaa waxay xarun agooneed kula kulantay walaalkeed gabadhani waaba baxsad oo waxay ka soo baxsatay Kuuriyada Waqooyi halkaas oo wali waalidkeeduna ku xaniban yahay waxay rabtay inay lacag badan hesho si ay waalidkeeda u soo dhaafiso meesha walaalkeedna ay uga saarto xaruntan agoomaha dhinaca kale cali wuxuu tagay meeshii uu ka shaqaynayay si uu ula kulmo maamulihiisii wuxuu Kuuriya u yimiday Pakistan uga yimiday si uu lacag u helo balse hadda ilaa 6 bilood mushaharkiisii lama siin waxa guriga u jooga oo isaga ku tiirsan xaaskiisii iyo inan yar oo u dhalay cali maamulihiisa waxa hortaala xirmo lacag ah balse haddana wuxuu diiday inuu lacag siiyo cali oo xanaaqay ayaa wuxuu ninkii ku riixay meel mishiin ah oo burburisay gacmihiisii wuxuu qaatay lacagtii waanu baxsaday markii uu gurigii tagay wuxuu lacagtii u dhibay xaaskiisii waxaanu u sheegay inay Pakistan dhaqso dib ugu noqoto cunugana ay ka haysato waxaanu u ballan qaaday inuu dib ugu soo noqon doono isagoo markii ugu dambeysay xaaskiisa habsii siiyay ka hor intaanay tegin
dhinaca kale Sang Woo wuxuu wacay hooyadii waxaanu isagoo been sheegaya u sheegay inuu weli Mareykanka joogo. hooyadii waxay si farxad leh ugu sheegtay inaanu wax hadiyad ah isku soo dhibin oo aanu u keenin, waxaanay dhigtay taleefankii. isla markii ay taleefanka dhigtay, maamadii da'da ahayd waxa u yimiday ciidamo booliis ah iyagoo ka waraystay Sang Woo. waxay u sheegeen inuu baaritaan ku socdo oo la raadinayo isagoo xaday lacag ay macaamiishiisu u dhiibteen, waxaanay ka codsadeen inay soo wargeliso marka uu u yimaado. islaantii way naxday waxaanay ku hor ceebowday macaamiisheedii oo ay wiilkeeda u faaninaysay. dhinaca kale Sang Woo wuxuu mar kale kaadh ka helay xaruntii. Gyuna wuxuu tamar iyo taagba u leeyahay xanuunka hooyadii. wuxuu u tegay xaaskiisii hore si uu caawimo weydiisto, balse way diiday inuu caawiyo. iyagoo wada hadlaya ayaa waxa u soo galay ninkeedii cusbaa iyo carruurtii. Gyun wuxuu uga baxay bannaanka, markuu baxayna waxa u yeedhay ninkii qabay naagtiisii hore. wuxuu u dhiibay xidhmo lacag ah, waxaanu ka codsaday Gyun inaanu mar dambe qoyskiisa u iman. Gyun oo xanaaqsan baa ninkii garaacay isagoo u sheegay inaanu inantiisa ka qaadan karin. intaa kadib inantiisii ayaa dibadda u soo baxday, waxaanay aragtay aabbaheed oo garaacaya adeerkeed. waxay aabbaheed u eegtay si niyad jab leh. kadib wuxuu gurigiisii ku soo noqday isagoo dareemaya ciirsi la'aan iyo in gebi ahaanba laga adkaaday. sarkaalkii booliiska ahaa ee Junho ayaa ku sii sugayay bannaanka gurigiisa. wuxuu Gyun wax ka weydiiyey kaadhkii, balse Gyun wuu dafiray isagoo u sheegay inuu cabsanaa markii uu booliiska wargelinayay. wuxuu mar kale qaatay go'aan ah inuu ku noqdo meeshii, mana rabo inay booliisku wax dhibaato ah ku sameeyaan. Junho wuxuu isku dayay inuu hadal ka soo saaro, balse Gyun wuu isdhaafiyey. isagoo gudaha guriga sii socda wuxuu arkay kaadhkii oo sudhan albaabka. nambarkii buu wacay, dib ayaanu u noqday si mar kale loo qaado. sidaasi la mid ah Sang Woo, Ilnam, Sabyok iyo Aliba waxay go'aansadeen inay ku noqdaan ciyaarta. xalqaduna waxay dhammaanaysaa markay fuulaan baska yaraa ee gaastiina mar kale miyir doorsoomiso. subscribe saar gambaleelkana furo si aad ula socoto xalqadaha dambe ee aan soo wado.